urur siyaasadeedka Hillaac ayaa xuduudda taageerayaashiisa ku soo bandhigay garoonka dhalinta kacaanka ee caasimadda Hargeysa ee madaxtirsiga kunka qof ee kala reebista ururada siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana halkaasi goobjoog ka ahaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka oo mid halkaasi u tiriyay taageerayaasha urur siyaasadeedka Hillaac intaasi kadib waxaa halkaasi uga mahadnaqay taageerayaasha soo buux dhaafiyay garoonka dhalinta kacaanka ee caasimadda Hargeysa gudoomiyaha urur siyaasadeedka Hillaac Professor Ahmed Ismaaciil Samatar saakaad soo kalahdeen aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkan laydinkuma hayn kara wixii imika ka dambeeya cadceeddu way kulushahay salaadii way soo dhowdahay waxaan doonayaa inaan idiin sheego aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa haddii aad tihiin reer Maroodi Jeex waad mahadsantihiin ul aanay Maroodi Jeex madax ka ahayna ma xalaaloobayso markaa reer Maroodi Jeexow gees ilaa gees aad iyo aad baad u mahadsantihiin waynu isku soo noqon doonaa hawl badan baa inoo hor taalla laakiin anna waan idin jecelnahay sidaa iyo nabadgelyo waddadaas si wanaagsan uga baxa ballankeennu waa doorashada soo socota waa Khadar Maxamuud Axmed Khadar Xeefo iyo Cabdi Cumar Jibriil